cilmi baaris ay soo jeedisay oo muujinayay gaabka weyn oo ka jira dhinaca waxbarashada waxaan waafaqsanahay tirada muxuu ahaa macallimiinta tababaran inay yar tahay ha yeeshee waxaan rabaa inaan anigu laba dhinac oo kale eego ma ahi idinla wadaagi maayo Malaysian experience idinla wadaagi maayo Sudan experience idinla wadaagi maayo Kenya experience ma ahi PhD laakiin waxaan rabaa inaan idinla wadaago reality on the ground aan joogay wadankan ku sugnaa labada arrimood aan rabaa inaan idinla wadaago waxa weeye intaanan gaarin waxaan joognaa meel dhexe meeshaas dhexe waxa weeye systemkii markii hore aan ku soo jirnayna waa ka soo tagnay gaab baan galay walina muxuu ahaayay meesha u soconna maanan gaarin oo caqabado badan baa ka sokeeya sheeko yar baan rabaa inaan idinla wadaago barihii qabaa'ilaadku diriri jireen waxaa jiray laba qabiiloo dirirayay ayaa mid ka mid ah meel barisamaada ayagoo jooga baa waxaa dhacday oo iska jirinin oo meel qurbaan ayaga iyo haweenkoodii kulli wada fadhiyaan baa qoladii kale ka kor timid ayagoo qoryihii wata marka waxay dhaheen kala baxa rag iyo dumar kala baxa markay kala baxeenna nin baa meesha dhexdaa istaagay marka waxaa la yiri adigu maxaa ahayd buu yiri suuxi walaalayaal aanu ragna maahay dumarna maahay yaa marka waxa weeye xaaladda hadda aan ku jirno xaaladaas u eg bay tahay waxay u baahan tahay isku duubni iyo waxyaabo noocaas in looga baxo labada arrimood aan idiin sheegaya waxa weeye mid waxa weeye arrinta dugsiyada hoose ka jirta dugsiyo hoose dhexe ka jirta aan wadankan joogay waxaa laga hadlayaa macallimiin tababaran iyo kuwa aan tababarnayn waxyaabahaas oo dhan wax ka daran baa jira dad baa hadda soo qaaday waxaa ka mid ah ilmahan iskuulka jooga iyadoo dhaqaalihii weliba jira dhaqaale daradii jirto haddana umaba jeedaanba waxbarashadaba waxay u jeedaan gabadhu waxay u jeedaa sideeba smartphone ku heshaa waxay ku fakaraysaa xataa inay waxbarashada ka baxdo ay soo shaqaysato si ay taleefankaas u gadato wiilku wuxuu u jeedaa iridda horteeda waxaa lagu gadaa baakada yarta waxaa ku jira marduufka jaadka marka la soo qaado laamaha laga dhigaa saddex laamood iyo fur yar oo khamro ah iyo cad yar oo darooga ah oo baakad yar bac yar ku xiran waa $1 iskoolka hortiisa lagu gadaa taasu marka waxa weeye si uu $1 u helo waa inuu khaladaad kala sameeyaa iyo waxyaabo kala sameeyaa marka waxaan sameynay baaris baan sameynay iskuulo badan baan saa ku aragnay wax weyn oo ka qaban karnay ma jirin waxaa jirta marka moodalo la dabaqi karo oo dalal kale leeyihiin oo ku guuleystay arrimahaas oo kale yacni intii aan dhaqankeena iyo diinteena khuseen kamaanan qaadan barnaamij choices la dhaho waxaan sameynay barnaamijkaas in aanu ilmaha bal u sameyno riyooyin u sameyno barno 10 modyuul oo ah muxuu ahay ku noolaansho nolol farxad leh ka fogaanshaha waxyaabaha mustaqbal dilayaasha oo daroogiskaas ka mid yihiin ay ka mid yihiin in la wada guuleysto ku dhaqanka maadaama reerkii faqiir yahay oo nolosha iska adag tahay wiilkan dhibaatadiisa aysan ka fargarayn karin bal inay uu caawin karo reerka marka waxa waa ilaa 5,000 arday baan gaarnay waxaan aragnay inay ku faraxsan yihiin in arday riyooyin sameystaan marka waxaan u soo jeedin lahaa wasaaradda waxbarashada bal barnaamijkaas qoraalana waa ka sameynay waxbaan ka qornay bal inay dib eegis ku sameeyaan waxaan aragnay in wax badan laga faa'iideysan karo qodobka labaad oo rabay inaan u gudbo waxa waaye arrin ku saabsan jaamacadaha maanta kama hadlayno tiradu intee tahay tayadu intee tahay kama hadlayno waa wax fiican oo waxaaba jiray marar aan jaamacad laga hadli karin oo warlords laga hadli jiray marka maanta inayba jiraan jaamacad waa wax weyn marka hal caqabad baa iyadana jirta marka hore 4 sano waalidkii baa soo biilaya ilmihii ku muxuu ah waxbarashadii ka bixinaya markay kumayaal ka soo baxaan bishiiba gurigii markuu ku soo noqdo wuxuu leeyahay shaqo igee wuxuu leeyahay muxuu ahaayay amay dhoofi mana awoodaan culayskaas family waa iyadana ku soo noqday waxaa la rabaa inay wasaaradda waxbarashadu il dheer u yeelato arrintaas haddii ay muxuu ahaayay ay howlgelin lahayd sida muxuu national service-kii oo kale la yiraahdo ardayga jaamacadda ka soo baxa bil sanad ha ka soo shaqeeyo gobolada fogfog iyo tuulooyinka iyo meelahaas hadhow markuu soo noqdo shahaado la siiyo ama in 6 bilood ugu horeysana xirfad la baro makhaayadaha iyo beeraha iyo suuqa iyo waxyaalahaas ka shaqeyso hooyadiis caawiyo taas waa ku talin lahaa meesha ugu dambeysa waxa waaye
ma ahan inaan ku fekerno inaan gaarno wadamo systemkoodu dhisan yihiin annagu wadan dagaalka soo daalay baan nahay waxaan rabnaa arday Soomaali ah Soomaali dugsiga hoose dhexe jaamacad uga baxa shaqo hela inaan soo saarno sababtu waxa waaye ardayga muxuu ahaayay aqoonta Soomaali ku barta xataa shaqooyin buu helayaa muxuu ajnabiga aanayto mashaariicda wada turjubaan buu noqonayaa mashruuci buu turjumayaa meel walba oo Soomaali looga hadlayo shirarka buu turjumayaa shaqo ka helayaa marka taasna waxaan jeclaan lahayn inaan lagu fakarinin waxyaabo muxuu ahaay dibad naga jiro oo aan gaari karin aan ku fakarno waxyaabaha dalka gudihiisa yaal. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.